الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله الله إردها عركا فرن وعدين حلس مالي عدل بانا مهبلي عفي ما تنوسمي عروري عرو لبا وعيد إردها عركا فرن وعدين حلس مالي عدل بانا مهبلي عفي ما تنوسمي عروري عرو لبا وعيد إردها عركا فرن وعدين حلس مالي عدل بانا مهبلي عفي ما تنوسمي عروري عرو لبا وعيد إردها عركا فرن وعدين عيدا 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 وعيد ونفسنا عيدا 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 وعيد ونفسنا عيدا ما دعيتكم سماكو عيدا وما دعيتكم سماكو عيدا سيدي ابهيري ومدي وصونتي أمركيس راعدو وأبال قدكيني عيدا سيدي إبهيري ومدي أصونتي أمركيس راعدو. الحمد لله مقعي وعبد الولي عبد عاقني وكمل بالشهادة مقالة ورير. الحمد لله ما أنت مقالة ورير سقروح بان بلوغي إيدي إلهي بaan ku mahadsan amniga iyo khayrka aan haysano waxa kula yaray jiilal yar baa jiray Allah na soo qaboojiyo marka alxamdulillah si fiican baan u idin qurux badan ma sha Allah ilaahay baa ku mahadsan waxaan ka salaamayaa dhammaan ummadda muslimiinta ah ee magaalada Boordheer gaar ahaan ku iiday sida qurux badan u iiday alxamdulillah waan leenahay ummaddaas waan salaamay halkan ka wada salaamay qof walba muslimiinta iiday waxaan leeyahay khayr badan korkaada ha ahaado assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh assalaamu calaykum ciidan maxaad leedahay wax uu uga bedeltaa ciidii hore ciidan kolley horta dee mar walba waxbaa sii siyaadaya oo waxaad moodaa inuu isbedel imanayo marka dee waxaad moodaa sida hore inay ka duwan tahay oo magaalada maanta way wada iiday laakiin horaan sidaas oo kale marka qaarkood ma ahan jirin waa la kala iidi jiray dee maanta si qurux badan baa loo wada iiday oo dee waad aragtaa ilaa hadda waaba dadku waa joogaan marka alxamdulillah waan leenahay waa si qurux badan baa loo iiday way ka duwan tahay farinteedu u dambaysa waxaa weeyaan in ummadda muwaafaqadooda la ilaaliyo oo laga ilaaliyo khilaafka iyo mataqaanaa kala qoobqob oo dee ummadii wada iidayso madaxdeedii minjeedii wada iidayso dee halka garoonka fadhido inuu maanta qof Soomanaado shicaarka islaamka uu dhinac ka maro waa arrin aad iyo aad looga xumaado marka waxaan leeyahay dadkaas haday jiraan dad afar maanta Sooman waxaan leeyahay wad khaldantihiin insha Allah ta'ala ummadda shicaarkooda iyo diinta islaamka shicaarkeeda ha ku ciyaarin alle magacayga maxamed cabdiwaahid maxamed siraad magacayga waa maxamed cabdiwaahid maxamed siraad alxamdulillah munaasabada ciida ma sha Allah aad baan ugu faraxsanahay maanta oo ummadda islaamka meel fiican ku wada kulmeen ilaahay subxaanahu wa ta'ala maartay baan u mahad celinaynaa munaasabad aad u qiimo badan runtii weeyaan oo aad ii farxad gelisay waan ku faraxsanahay ummadda islaamka ana waxaan maartay ku goobaabinayaa ilaahay subxaanahu wa ta'ala nimcada uu siiyay in maartay wax weyn aan u aragno ku qanacno nabigeena sallallahu alayhi wasallam waa kiilaha waqnac bima qasaba Allah laka takun min aghni an-nas ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu ku siiyay dad ku qanacdo islaamnimadu ka tahay nicamta ilaahay maartay ku xigtay laba ka tahay waxaad noqonaysaa qofka dadka ugu qanisan ayaad ahaanaysaa marka aad baan maartay ummadda islaamka waxaan leeyahay maartay maanta inaan maalin weyn u aragno oo ducada badino maartay aad baan ugu tahliikeenayaa horay u socdaan leeyahay Allah idin barakeeyo idinka badan بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله
ilaahay baa mahad iskale ilaahayga maanta nagu soo geersiiyey ciidulfidriga nabad iyo caafimaad waxaan u hambalyaynaa dhammaan ummadda muslimiinta gaar ahaan dadka muslimiinta Ethiopia gaar ahaan deegaanka Soomaalida gaar ahaan degmada Wardheer gaar ahaan magaalada Wardheer alxamdulillah ilaahay baa mahad iskale nabad iyo caafimaad nagu gaarsiiyey sidoo kale dadka waxaan kula dardaarmanaa amniga in la xoojiyo nabadgelyada la xoojiyo ilaahay baa mahad iskale dowladnimada ayna siiyey dowladda kaliya nabadgelyada kama shaqayn kartay dhammaanteen inaan wada istaagno in la isgarab istaago la wada ilaaliyo sidoo kalena ummadda muslimiinta inay xilli kulul oo jiilaal lagu jiro la isku naxariisto dowladuna dadaalo badan ay wado garabkeenana la wada hado markaan isku naxariisano ilaahay inoo naxariisanaya alxamdulillah marka ilaahay baa mahad iskale ilaahay meel kasta oo ummadda muslimiinta joogto waxaan rajaynaynaa bashbash iyo baraari iyo farxad iyo caafimaad madal khayr qabana allah ina siiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh